waxaa saaka subaxii gudaha magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag lagu waabariistay waraaqaha nooca loo yaqaano stickeriska kuwaasi oo guud ahaanba lagu dhejiyay wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Ceerigaabo, goobaha ganacsiga, guryaha, baabuurta iyo iskuulada ay ardaydu wax ku barato. sidoo kalena waxa ay warqadahani ku dhegsanaayeen kaaryoonada ay ku xamaashaan haweenka danyarta ah ee u xamaaltaga sariibada magaalada Ceerigaabo. warqadahan ayaa waxaa ku xardhanaa magaca jabhadda ee uu hogaamiyo Saciid Caawili Jaamac Korneel Caare, fadhigeeduna yahay magaalada Qardho ee maamul goboleedka Puntland, iyadoo warqadahani ay saameyn badan ku sameeyeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Ceerigaabo, kuwaasoo ay dad xoog u hadalhayeen isla markaasina ku xoonsanaayeen gidaarada iyo goobaha ay ku dhegsanaayeen. warqadahani ayaa khalkhal geliyay nabadda magaalada Ceerigaabo. ma aha markii ugu horeysay waraaqo noocan oo kale ah lagu arko gidaarada, balse waxa ay tani labaysay 1988 oo ahayd markii ay jabhadda Islam kacdoonka ku sameysay dawladii kalitaliska ahayd ee Maxamed Siyaad Barre. warsame kaafi Cabdirashiid Adan, bahiyaha caalamiga Soomaaliya TV, magaalada Ceerigaabo xarunta gobolka Sanaag.